بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة قدرنت يقيمها إنك مضن الله بكو حرن جنال كان يوتيوب كا إسماعيل عقيلة كسو دبادة برنامج كينا شايكا يحكمة ديدا ما أنت محان كسو قادن دورنا إن شاء الله تعالى قصو وحان سو قادن دورنا ما أنت دور بوينر عليك النقضة لين وذاتها إسلام رعانتا نقبر جعلادي يا حالك قبر إيه وذاتك الأحمري أيات هل كان كقبر دونتان هدور بوينر عليك النقضة balse nala dhamayso muuqaalka insha Allah ta'ala fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar say dhiirigelin inagu noqoto sidoo kale aan ugu dhiirado waxyaabaha xiisaha badan aan isla yahay daawadayaasha ku xiran channel-kaaga aad bay kaga bogtaan aan idinkugu soo gudbiyo cid walba nagu soo biirta hadduu rab weynar ali ka noqdo sidoo kale like saar barnaamijyada aan halkan idinkugu soo gudbino haddii aad ka hesheen sidoo kale ha ka ilaawina inaad sii sheergaraysaan muuqaalada si meelo fogfog iyo dad badan ay u hantaan kaliya isku koobin inaad adiga kaliya aad hanato dad badan oo xiiseeya ayaa jiri kara si ay kula wadaagaan insha Allah ta'ala sidoo kale gambaleelka furo si aad u hanato ama aad u hesho ama aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan idinkugu soo gudbino insha Allah ta'ala waxa maalmaha kamid ah jiray nin wadaada kaas oo jeclaaday gabar isla marhaantana wada uu ku arkay gabadhii ayaa ninkii uu ku leexday isla marhaantana wuxuu kaga waramay xaalkiisa iyo sidoo ugu helay gabadhii ayaa waxay ku tiri dib malaha kolba insha Allah ta'ala waanu sheekaysan doonaaye bal aan isku imaadno insha Allah ta'ala xaafada aan isu imaadno gurigeeda ayaa maalintii kaliya iyada ayaa joogtay hooyadeedana waxay ahayd qof ganacsato ah maalinkii dhan ganacsato ay ganacsi ay ku jirtay gurigan ee laba iyada iyo hooyadeed baa ku noolaa ninkii wadaadka ahaa ayaa isku dhiirigeliyay inuu gurigii tago isla marhaantana gurigii ayuu tagay albaabkii uu garaacay gabadhii ayaa ka furtay waxaa la geeyay qolka fadhiga meel laba meelood ayay kala fariisteen markii meeshii ay kala fariisteen ayaa waxaa ka dhacday meeshii in labada dhinacba aamusnaan ay ka dhacdo midba midka kale uu midkaan sugo cabaar marka la fadhiyay kabacdi ayaa gabadhii waxay ku tiri maad hadasho ninkii wadaadka ahaa ayaa wuxuu bilaabay markuu garan waayay inuu hadal meel uu ka bilaabo ayuu wuxuu bilaabay inuu gabadhii u wacdiyo isla mar ahaantaana alla ka cabsi iyo waxyaabahaas uu amray intaas ka bacdi markuu dhameystay ayaa gabadhii waxay tiri sheekh khayr Allah ku sii waad ku mahadsantahay sidii ayuu ku soo baxay ninkii ayaa naftiisa canaan kala dulacay isagoo maxaa dhacay isagoo wuxuu sameeyay iyadoo khayr ay tahay wadaag ay tahay haddana hadafkii uu lahaa ee gabadhan inuu jecel ama waxba u sheegto uu lahaa uusan karin ayuu ninkii isku canaantay isla marhaantaana isdhiirigeliyay mar kale ayuu nafsadiisa wuxuu u sheegay in kulanka midkiisa xiga mar walba imaad ay gabadhii u raacisay wacdiga markuu u jeediyey kulankan midkiisa maadaama jaanis ay ku siisay fursadna aad ku haysato bal berito kaga faa'iidayso isiri ninkii markii intaas ay marayso sheekadii ayaa waxaa dhacday maalintii labaad ayuu gurigii tagay sidii ayaa loo soo dhaweeyay isla marhaantana loo fariistay aamusnaan kadib gabadhii ayaa haddana waxay tiri maxaa kugu dhacay maad hadasho sheekii ayaa wuxuu bilaabay in sidoo kale wacdi uu ku tuurto isla marhaantana cabaar markuu wacdiga u dhammaystay ayaa waxay ku tiri gabadhii sheekhow nin adiga kaa fiican ma arkin intaad dadka guryahooda ku soo booqato ayaad haddana u wacdinaysaa aad baad u mahadsantahay berina ii imaaw insha Allah ta'ala ninkii uu soo baxay gurigii ka soo baxay markuu banaanka yimaado ayuu haddana sidoo kale naftiisa inuu canaanto bilaabay isagoo isla yaaban hadafka uu lahaa iyo gabadha waxa uu sheegto uu doonayay iyo sidoo kale si ay wax ka noqdeen waxa uu isku sabay markiiba isagoo asxaabtiisa iyo dad badan la tashaday in kulankan kale uu ka faa'iideysto warqad buu qortay warqad buu diyaarsaday intaas kadib ayaa waxaa la gaaray waqtigii waxa uu tagay gurigii markuu tago waxaa layidhahaye warkii ayuu bilaabay wacdiguu bilaabay laakiin wacdigii maanta bal wuxuu kaga hadlay jaceylka iyo sidoo kale guurka iyo waxyaabahaasuu kaga hadlay maanta mawduuciisuu taabtay sidii ayaa mawduucii markuu ka hadlay ayaa arrintiisa ugu fududaatay gabadhiina uu ku hantay sheekadaas yar ayaan idinla wadaagaynaa xigmadda sheekada ku jirtana waxay tahay dadaalaa uu gaarayaa wax walba oo aad adiga isku dayda ugu dambeyn waad ku guulaysanaysaa gudahaan barnaamijkeena maanta sheeko iyo xigmadeeda intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar barnaamijka haddaad ka heshay like saar sidoo kale share garee muuqaalka si ay meelo fogfog ay u gaaraan ama dad badan oo u gaaro sidoo kale insha Allah ta'ala gambaleelka furo si aad u noqoto qofka koowaad ee muuqaalada xiisaha badan ee halkan aad idinkugu soo gudbiyo hela
inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono waa walaalkiin waa saaxiibkiin Ismaaciil Maxamed Said Cali oo idinkaga tagaya sidaas nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh